gudoomiyaha iyo odayaasha deegaanka Ceesho ka tirsan gobolka Togdheer ayaa raaligelin ka bixiyay eedeymo ay dhawaan u soo jeediyeen xukuumadda Soomaaliland iyo guddida gurmadka abaaraha gobolka Togdheer kuwaas oo ay sheegeen inaanay soo gaarsin wax taakuleyn ah deegaankaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa gudoomiyaha Ceesho aan ahay gudoomiyaha Ceesho xiiga soo baxay wax laga tirsaday waxweeye xaar iyo boortis ayaan ka baxay taanu nahay odayada tuulada Ceesho hadal naga dhacay oo khalada waan xaal iyo boortis baan ka bixinay raashin waana soo gaaray bisha 15 meelaha afar boodoo biyano waana soo gaareen iyadoo odayga hadalka isagoo khalkhalsan oo makanaysa geeri ku dhacday si yar uga baxay aan iska fili haynin حال يبغى تصبر نقبل. برواقة هذا المحمد.